nabiil al qurawi oo kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimo ee tunisiya isagoo markaasi xabsi ku jira haddana wareeggii labaad doorashada diyaar hadda u ah ayaa xabsiga arbacadii shalay laga soo daayay. dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey dagaalka turkiga uu ku qaaday kooxda kurdiga ee xadka suuriya. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro ka soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni. ciidamada dalka Tunisia ayaa sii daayay Nabil al-Qurawi oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada dalkaasi ee u soo gudbay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada. al-Sayd Nabil al-Qurawi oo dib u helay xorriyadiisa waxaa si weyn u soo dhoweeyay boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa oo isugu soo baxay caasimadda Tunis. siideynta musharax Nabil ayaa timid kadib markii maxkamadda xukunka ku riday ay aqbashay racfaanka laga qaatay amarka lagu xiray. Nabil al-Qurawi oo ah gudoomiyaha xisbiga qalbi ayaa xabsiga ku qaatay muddo ka badan bil waxa uuna galay kaalinta labaad doorashada madaxtinimada ee ka dhacday dalkaasi xilli uu ku jiray xabsiga. musharax Nabil ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu soo eedeeyay inuu bixin waayay canshuurta dalka iyo isagoo isdabamarin ku sameeyay lacago badan. arrimahan ayaa imaanaya xilli guddiga doorashooyinka Tunisia maalintii shalay shaaca ay ka qaadeen natiijada doorashada baarlamaanka oo 6 bishan ka dhacday waddankaasi. kuraasta baarlamaanka dalka Tunisia ee loo tartamayay oo gaaraya 217 xubnood ayaa xarakada islaamiga ee al-Nahda ka heshay 52 kursi kaasoo noqonaya tirada ugu badan oo ay heleen axsaabta u tartantay xubnaha baarlamaanka. sidoo kale xisbiga qalbi ayaa helay 38 xubnood halka axsaabta kale ee dimuqraadiga iyo isbahaysiga al-Karama ay heleen 22 iyo 21 kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka dalkaasi. maalinta axadda ayaa lagu wadaa dalka Tunisia in ay ka dhacdo codbixinta doorashada madaxtinimada wareegga labaad oo ay ku tartamayaan Qays Saciid oo ah musharax madax bannaan iyo gudoomiyaha xisbiga qalbi Nabil al-Qurawi oo xalay xorriyadiisa dib u helay. dhinaca kale ururka jaamacadda carabta ayaa ku baaqay shir degdeg ah oo looga arinsanayo duulaanka dowladda Turkiga ay ku qaaday qaybo ka mid ah dalka Suuriya. shirkan degdeg ah ee jaamacadda carabta ayaa yimid kadib markii dowladda Masar ay ka dalbatay ururka jaamacadda carabta shirkan looga hadlayo xaaladda dalka Suuriya oo maalintii shalay militariga Turkiga ay weerar cir iyo dhul ay ku qaadeen waqooyiga dalkaasi. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar ayaa si adag loogu cambaareeyay waxa ay ugu yeereen duulaanka gardarada ah ee ciidamada Turkiga ay ka geysanayaan waqooyiga Suuriya. warmuftiyeedka ka soo baxay dowladda Masar ayaa ugu baaqaya xubnaha ururka jaamacadda carabta qabashada shir degdeg ah maalinta Sabtida si loo ilaaliyo madax bannaanida iyo amniga dowladda Suuriya. duulaanka Turkiga waa mid dhaawacaya madax bannaanida dowlad Carbeed isla markaasina ka soo horjeeda qaanuunka caalamiga ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa loogu baaqay beesha caalamka gaar ahaan golaha amniga ee qaramada midoobay in tallaabo degdeg ah laga qaado dowladda Turkiga. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa si weyn u cambaaraysay duulaanka Turkiga ay ku qaaday waqooyiga Suuriya. tallaabada Turkiga ay qaaday waa mid dhaawacaya madax bannaanida dowladda Suuriya isla markaasina khatar ku ah nabadgelyada iyo midnimada dalka Suuriya ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya. arrimahan ayaa imaanaya kadib markii maalintii shalay militariga Turkiga weerar cirka iyo dhulka ay ku qaadeen waqooyiga Suuriya taasoo madaxda dalkaasi ay ku macneeyeen inay ku ciribtirayaan dagaalyahanada Kurdiska oo gacan saar la leh waxa ay ugu yeereen argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira. dunida muslimka waxa uu hadda marayaa xilli adag iyadoo dalal dhowr ah ay dagaallo ka socdaan halka bulshooyinka muslimiinta qaarkood ay dhibaato kala kulmaan dalalka ay ku tirada yar yihiin. haddaba waa maxay kaalinta ururka iskaashiga islaamka? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere uu weydiiyey danjire cabdirasaaq siyaad
cabdi sancaani oo ah ergeyga joogtada ah ee dowladda soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada jidda ee dalka sacuudiya carabiya. maxamed waad mahadsan tahay. 25 bishii hore ayaa waxaa ka dhacay golaha loo dhan yahay maaragtay mutaxida amba United Nationka magaalada New York. waxaa barbar socday shirar oo lahaa ururka iskaashiga islaamka iyo UN ay wada lahaayeen oo qaar ka mid ay khuseynayeen Soomaaliya. marka kuwaasaan anagu u imid umaan soconin kan kale ee guud ee maaragtay ururka loo dhan yahay. laakiin wafdigaad la socotay Soomaaliya? wafdigu wax ka soo ababaxay Muqdisho, laakiin anigu jiddo oo ah xarunteeda ka yimid, marka gudahan kaga soo biiray baan ka soo raacay Muqdisho. waan gartay. marka wixii aad idinkii qaramada midoobay ka wada hadasheen hadaatiin ururka islaamka maxay ahayd? waxaa jira dhammaan wadamada islaamka oo ay xubinta ka ah waxay ka mid yihiin sidoo kale jamciyadda qaramada midoobay ay ka mid yihiin. marka waxay iska arkaan inta shirku socdo iyaga si gaar ah isu arka, laakiin labada xog ee guud baa iyagu marmar is arka. inta badan waxa loo yimid wax la yiraahdo kooxaha xiriirka oo wadamo badan oo Soomaaliya ka mid tahay danayo isha gaar ah ku haya, kuwaas isku arka si maaragtay shirdacoodiyada isku arka. marka kulmad noocaas ilaa 7 gaarayo ilaa heer wasiir ah ayaan ka qayb galnay oo ka dhacay New York. marka waxyaabihii aad culays ka saarteen maxay ahaayeen sanadkan? waxaa u badnaa meelaha ay ka jiraan xasaradaha sida muslimiinta laga tirada badan yahay Burma ama Myanmar oo aad iyo aad ugu dhibaataysan waddanka Bangladesh. waxaa ka mid ahaa dadka muslimiinta Uyghur loo yaqaan minority-ga China dhibaato lagu hayo, gobolka Assam India, Kashmir iyo India xaaladooda kacsan, iyo wadamada kale xubnaha ee Carabta dhibaatooyinka Liibiya, Yemen, Syria meel aan la taaban ma leh, waayo booga badan baa ku yaala jirka dowladaha islaamka ah. waxaanad moodaa Soomaaliyeed inay ka mid tahay kuwa ugu khafiifsan hadda. waan gartay. Soomaaliya u iman doonaa haddaynu ku bilowno labada loogu hadlaa inta badan yahay, inkastoo saa sheegtay boogtu ay weyn tahay oo meel walba ay gaadhay, Rohingyaha iyo tan Uyghurka Shiinaha. aanu ku bilowno Shiinaha nasiib darro waxa ah inay diblomaasiyadda Shiinuhu ay shaqo badan qabatay, isla markaana ururku ku qaybsan yahay, qaar raba in la cambaareeyo iyo kuwa doonaya in si diblomaasiya lagu xalliyo. marka kala qaybsanaantaasi waxay keentay inaanu go'aan xoog badan ka soo bixin. waxaana nasiib wanaag ah inay dowladda China ogolaatay ugu dambeyn 2 arrimood: inuu wafdi soo booqdo ka socdo ururka iskaashiga islaamka oo ay u furaan meelihii farta lagu fiiqayay, iyo sidoo kale inay markii koowaad ay ogolaatay heerku doonaba ha gaadhay inay kala hadasho dadka Turkiga, dowladda Turkiga oo dadkaasi asal ahaan dhiig wadaag ay leeyihiin. waan gartay. Mareykanku wuxuu cunaqabatayn saaray qaar ka mid ah saraakiisha la yidhi waxay dhibaato u geysteen dadka Uyghurka. arrintaasi ma idin kaalmayso? waxaa ka horeysay hay-adda xuquuqul insaanka United Nationka oo Geneva oo aad u cambaaraysay, midowga Yurub baa ka horeeyay, waxaa ka horeeyay beesha caalamka aad bay in badan u cambaaraysay. laakiin xogta ay hayeen dowladaha islaamka siiba dowladda Turkiga xil iska saartay way ka horeysay, waxaas oo dhan waana ka badnayd. saasoo tahay haddana awoodda ay China leedahay maanta darteed laguma dhiiran karayn in afka lagu ballaariyo oo si caadi ah loo cambaareeyo, iyadoo la eegayo xiriirka dhaqan-dhaqaale, iyadoo la eegayo xiriirka dowladuhu ay si gaar ah leeyihiin, iyo iyadoo la diidayo in dhinac loo bato. marka waa la ogyahay dhibaatada jirta, laakiin mowqifkii ay dadka shucuubta islaamku ay u hanqaltaagayeen lagama qaadanin. waan gartay. intayna Soomaaliya u taagin si kooban Rohingya Rohingya bishii May 2018 shirkii wasiirada arrimaha dibadda ayaa ka qayb galay Bangladesh. waana tagnay wafdi aan ka mid ahaa oo ilaa heer wasiir ku-xigeenka hogaaminayay. xitaa waxaa loo qaaday wafdiga meesha la Cox's Bazar oo ah meelaha xarunta ay ku urursan yihiin dad aad u tabaalaysan oo tacadi badan loo geystay, isla markaana la inkiray inay xitaa waddanka u dhasheen. marka dowladda Bangladesh oo shirka marti gelinaysay ayaa waxay hor keentay golaha wasiirada la ansixiyay hindisi sharciyeedyo fara badan oo markii dambe qaraar isu bedelay oo ahaa in kow kaalmo la geysto in cadaadis lagu saaro dowladda Myanmar oo ay ka taliyaan niman budistayaal iyo askar macangiga. waxaanad moodaa inay shirkii u dambeeyay New York soo dabceen, isla markaana aad mooday imaka inay mararka qaarkood generaalkii dadka xasuuqayay ayaa wuxuu lacag ku bixinaya masaajidda la dhiso isagoo doonaya wejigiisa inuu qurxiyo, laakiin weli meel fog bay arrintaasi taagan tahay oo ka xunnahay. waan gartay. dhinaca Soomaaliya danu nimaadno ururka iyo wada shaqaynta dowladda Soomaaliya ama taageerada ururka siiyo dalka Soomaaliya. taageerada ururka siiyo intaan sheegin waxaa ka horeysay taageerada ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda ay siiyeen oo ay ka mid tahay koof fikradii lagu aasaasay inay ka timid maskaxdii madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliyeed Aadan Cabdulle Cusmaan. isaga ayaa booqasho ku yimid magaalada Jidda oo xarun u ahaan jirtay Sacuudiga bariga bishii August 1962. fikradda ururka lagu aasaasay isaga ku dhaliyay Boqor Faysal. xaqiiqada dad badan baan ogeyn, laakiin waxay ku soo bixi doontaa buugga OIC oo la daabici doono konton guurada ururka aasaaskiisii oo bishii September loo dabaaldegay, dhawaanna Sacuudiga lagu qaban doono.
ururku xilligii ay dagaaladii sokeeye ka jireen wuxuu ka geysan jiray kaalmo bini'aadanimo oo aad iyo aad u baaxad weyn oo meelo badan gaadhay oo ay ka mid tahay dibudhiska iskuullada ka mid tahay ceelasha raashinka dadka barakacayaasha ah iyo shirarkii dib u heshiisiinta iyo doorashooyinkii oo dhammaan uu goobjoog ka ahaa waxaa jira dabcan waxyaalo caqabad ku ah in kaalintii uu lahaa qaranka soomaaliyeed uu ku yeesho oo ay ka mid tahay lacagaha diinta ee joogtada ah oo dhowaan la bixin doono oo ilaa 2 milyan gaadhaysa oo xilligeed burburka ilaa 6 milyan oo hore laga cafiyey taasa waxay keentay inay kootadii ama shaqaalaha u shaqeeya xogeynta guud amba madaxda kaalayaasha inaan waxba lagu yeelan waxaa kaloo jira waxyaalaha ay dadka soomaaliyeed ay ku faani karaan in guddiga dhexdhexaanideed ugu weyn ee OIC ay ku faanto ee 27kii heshiisiyey Pakistan iyo Bangladesh amba kala guray inuu ahaa guddi ay Soomaaliya madax ka ahayd oo ilaa haddana OIC recordkeeda ku jira loona yaqaano guddiga 6 ah amba guddigii 6 nin oo wasiirka arrimaha dibadda xilliga uu hogaaminaya Cumar Cabdi Qaalib marka wax badan baa la isdhaafsadaa waxna inaga u qabana oo teena ka badan waxna way inoo qabtaan danjire cabdirasaaq siyaad cabdi sancaani oo ah ergeyga joogtada ah ee dowladda soomaaliya u fadhiya ururka iskaashiga islaamka ee fadhigiisu yahay magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya oo u waramayey waryaheena maxamed cabdi sandheere